Asalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa dhibaatada uu leeyahay make-upku uu sababo. Waan ka hadlaynaa dhibaatooyin fara badan ayuu make-upku sababaa. Marka dhibaatooyinka waa soo koobaynaa, kuwa ugu muhiimsan oo ugu khatarsan baan sheegaynaa. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah headache ama madax xanuun ayaa ka mid ah, leannu make-upku wuxuu ka kooban yahay chemicals buu ka kooban yahay. chemicalskaasa waxay sababayaan madax xanuun. marka maadada sababaysa waxaa loo yaqaanaa diazolidinyl urea, DMDM, hydantoin. labadaas chemico waxay sababaan madax xanuun, waxayna ku jiraan make-upka ay ku jiraan oo ka mid yihiin. waxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu make-upku sababo hair loss, ama tintu inay kaa duusho ama tintu inay kaa dhacdo markaad muddo isticmaashid make-upka because of chemicals. wuxuuna kuu sababayaa inuu xaad kaa soo saaro wejiga iyo gacmaha, meelaha aad marsanayso make-upku inuu xaad kaa soo saaro. dhibaatada saddexaad uu soo saarayo make-upku waxaa ka mid ah inuu kaa soo saaro finan, inuu kaa soo saaro maqaarka ama wejiga, inuu finan kaa soo saaro because make-upka markaad marsanaysid maqaarka wejigu wuxuu ka kooban yahay daldalooluu leeyahay. daldalooladaas markaad marisid make-upka, daldalooladii waa ay xirmayaan. make-upka laftigiisa nooc ka mid ah jiro oo laysku buufiyo. markaad buufisid daldalooladii uu lahaa maqaarku uu ka neefsan lahaa, oksijiinka ka qaadan lahaa, qashinka ka saari lahaa ayaad xirtay. markaad xirtidna waxaa kugu soo dhalanaysa inay kaa soo baxaan finan, inay kaa soo baxaan. sidaa daraaddeed markaad make-upka marsatid habeenkii ha ku seexan, iska dhaq, iska nadiifi. markaad iska nadiifisid kabacdi seexo. waxaa ka mid a dhibaatooyinka uu make-upku sababo allergic ama skin allergies, ama xasaasiyadda maqaarka ku timaada. make-upku wuxuu ka kooban yahay chemicals buu ka kooban yahay. chemicalska xasaasiyadda maqaarka sababaya oo make-upka ku jirana waxaa ka mid ah asparabins. parabinskaasi waxay ka kooban yihiin ethyl parabins, butyl parabins iyo isoprobyl parabins. saddexdaas chemical waxaa loogu talagalay in ay make-upka laftigiisa ay ka ilaaliyaan inay bacteria ku dhalato. sidaa daraaddeed waxay kugu sababayaan iyaga laftigoodu in ay xasaasiyad ama cuncun maqaarka wejiga ah uu kaaga dhasho. dhibaatooyinka make-upka uu keeno waxaa ka mid ah eye infection, indhaha in infection uu kaaga dhaco. make-upku waa chemicals laysku daray. maqaarka qeybta indhaha ku dhowna waa qeybta ugu xasaasisan ee wejiga ama ugu jilicsan. markaad make-upka marinaysid xiribaha indhaha iyo baalasha indhaha, markaad marinaysid waxaa laga yaabaa make-upka laftigiisu inuu indhaha kaa galo. maqaarkaasina waa maqaar jilicsan oo maqaarka kale oo wejiga ka jilicsan. sidaa daraaddeed marka wuxuu kugu sababayaa infectionka indhaha. dhibaatooyinka uu make-upku sababo waxaa ka mid ah premature aging, waxaa loo yaqaano wejigaagu inuu ka weynaado jirkaaga inta kale, ama da-da wejigu inuu da-daada ka weynaado. chemicalska markaad isticmaalaysid make-upka muddo fara badan, isagoo ka kooban chemicals oo haddana xiraaya daldalooladii maqaarka jirkaaga u xiraaya, kabacdina maqaarka jirka wejigaagu wuxuu noqonayaa mid coorcoorsan ama duuduubmay markaad muddo isticmaashid make-upka. sidaa daraaddeed wejigaagu wuxuu ka weynaanayaa jirkaaga inta kale. dhibaatooyinka uu sababo make-upka waxaa ka mid ah hormonal imbalance, inuu hormoonka jirku uu sameeyo ama uu sii daayo inuu la falgalo. chemicalska ama waxyaabaha laismariyo sidoodaba waxaa laga keenay toxic baa laga keenay. marka hore ugu horeysa maadooyin laysku daray oo toxiga, marka waxay la falgelayaan habdhiska dheecaan wadeenka ee jirka ee loo yaqaano endocrine system. waxyaabaha uu wax u dhimaayo oo hormoonka ugu horeeya uu la falgelayo waa hormoonka loo yaqaano thyroid gland. dhibaatada ugu dambeysa uu make-upku sababo waxaa ka mid ah oo uguna khatarsan inuu kugu keeno ama kugu sababo kansarka.
kansarkaasoo uu ugu soo horeynayo kansarka maqaarka. markaad muddo isticmaashid waxyaabahan cosmeticska loo yaqaano ama chemicals loo yaqaano, markaad muddo isticmaashid markii horena ay ka yimaadeen waxyaabo toxic ingredient loo yaqaano oo sun laga keenay, maadooyin la isku dardaray oo sun laga keenay, wuxuu kugu sababayaa kansarka maqaarka. waxaana ka mid ah daawooyinka sunta ah ee ku jira make-upka. waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano quaternium 15, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, phenacetin, coil tar, benzene, ethylene oxide, chromium, cadmium and its components, arsenic, crystalline silica. maadooyinka aan soo sheegnay waa maadooyinka ugu khatarsan uu ka kooban yahay make-upku, waana maadooyinka kugu sababaya kansarka. sidaa daraaddeed waa inaad ka taxadirtaa marsashada make-upka. haddii ay dhacdo inaad marsatid oo meelaha daruuriga markaad aadaysid aad marsatidna, habeenkii ha ku seexan, waa inaad iska dhaqdaa. make-upka isticmaalkiisa inaad badsatidna ma fiicna.